haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like gumaaha lacag noo saar please subscribe like and share thanks السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا السلام الصومالية ملك كستدا دونك كجوكتين وولاشين أبح ورسمي إي مركلة يتلادي تلادة أسبوع وحن كسو قادنايا وآد أن أوليابنا مادام لغو جرو حلي COVID-19 وأدونيا دي ودن قلقلي وان مرة بدن كسو نقوني سيدان uga hadli lahayn COVID-19 iyo wacyigelinta aan ka bixinayno oo aan bulshada ka siinayno fadlan xasuusta waqti yar way waqtiga guryaha lagu xirnaanayo waqtiga la leeyahay kala fogaada oo isisiya distance ama social distance laakiin social distance macnihiisu ma aha xaaskaaga inaad ka fogaatid oo qol isku soo xirtid oo tiraahid caruurta naygahay caruurta na seebad u hayn jirta caruurtan na guriga na qolkayga soo xir may xaajiyaduna ma aha gabadha xaaskaana ma aha inay social distancing u adeegsato inay odageeda ku tiraahdo warheedhe fadhiga guriga iisa fadhida baliga fogow in la kala fogaadaa aan la isu sheegay oo aad labadiinna is dhibsatiin taasi ma aha social distancing kala fogaanshaha saxda ah ama social distancing saxda ah ma aha in aad xaaskaaga ama husbandkaaga odagaaga ama gabadha ku dhaxday ama labada qof oo familka qoyska ah ma aha inay taas social distancing taa ma aha haddii uu xanuunkii kugu dhacay oo aad karantiin is gelinayso meel isku soo xirayso waa gooni laakiin dadkii wada caafimaad qabo guriga isla jooga in iyagoo qadiyada kale ku fakaraya ay isu adeegsadaan social distance baa la yiri na iga fogow oo ama war adigana iga fogow waan ku nacayo gurigii baad saad igu soo fadhiday baan ku nacay marna loo furo may is dhibsiga saas ah looma baahna reerku qoysku waa inuu hadda isbarasho cusub iyo wada hadal iyo maaragtay qoys isku soo dhawaada waa inay noqdaan yaa la isu adeegsan social distancing ayagoo qadiyo kale maskaxda lagu hayo oo isdhibsi kale uu jiro isku daya inaad xalisiin waxyaabaha kale oo dhexdiina ah idinkoon u adeegsan COVID-19 iyo kala fogaanshaha marka aan ka hadlayo kala fogaanshahan iyo odaga iyo gabadha inayan saa u adeegsanin qadiyada kale ayagoo adeegsanaya inayan ayagu isu adeegsan social distancing maaha waxaan anigu kaliya iskala imid waxaa jira dumar ila soo hadlay gabdho ila soo hadlay oo odayaashoodii markay kasoo fariisteen shaqooyinka ay leeyihiin naa guriga intay qol isku soo xiraan naa iga qaba caruurtan seebay waxaan u hayn jirtay waxaan cirka kama soo dhicin ma ogido caruurtan cirka kama soo dhicin waa kuwa labadiina isla dhasheen inta dibadda ku maqneed gabadha baa hayn jirtay iyada ka xigsan jirtay maanta waa inaad u ogaato oo tiraahid na walaale ma dhibkanaad ku jirtay na walaale ma hawshanaad haysay na duca qabto oo sadahaba u soo gadid markii karantiilka laga baxo oo aad reerkoodii hadiyad gooni u dirtid oo aad maaragtay hadda xoolo ka bixisid gabadhaas inta soo caruura oo maanta aad saacad u dul qaadan karin ka haysa karantiilku marka reerkii buu istusay kala fogaanshahan ayaa la isu adeegsan hal caawiyo xaasaska